markii aan arkay adigoo dadkaygii ku waayay oo dantaydii oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya aniga kuma lihi boos kuma lihi oo guri kuma lihi oo xoolo ma lihi maxaa yeelay intaan ka tegey waan dantan ma qabo adigoo sidaa ugu soo dhintay markii aan arkay dowladdii Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalka ayaa laga qabtay 3 habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaanaha layla dhaqmay waa laga soo qaaday muqdisho lay keenay waxa layla dhaqmay si fool xun oo ihaanaha layla dhaqmay markii aan arkay iyadoo intii la iga duubay oo indhaha layga xidhay anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iga calaysisay markii aan arkay in markaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda ruuxiga maahan bay dhamaynahay waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawirka laga qaadanayo isla markiiba diyaaradii lagu celiyay markii la geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumay oo goday joogtay dhaanta markay ugu duqabsadeen aflagaada markay iimiseen say caahiyeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha ka oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dal lahayn waxaan arkay oo isiri arxamadi waxay iga bacday arrintaasi waa murugo aad waxaan ku baahay waxay iga bacday markii aan arkay oo ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hoob ay la garab taagan arrintaasi iga bacday runtii waxa ii muuqatay inaan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan gartay dhibaatada waxa ii geysatay inay ahaayeen ashxaas dambiir aan lahayn ashxaas shaydaan u hoggaansatay iyadana waxaa u furan inay toobad keento waxaan hawlahooda uga hadli doonaa markale si fiican walaalayaal runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina waan xamaasadaysnahay waan laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdo waxaan markaan ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtiisa dambe wixii tartaanana iyo waxaan ku shaqaynayay iyo habka aan u ballan qaadi doono